آه سودة وهذا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. marka hore waan salaamayaa guud ahaan ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay ku dhaqan tahay. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaan jecelahay runtii inaan maanta halkan waxoogaa waqti ah oo kooban aan kula qaato bulshada iyo shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda reer Somaliland. waxaan jecelahay inaan ka warramo ama aan wax ka barano ama waxaan ka ogaano taariikhda ciidanka qaranka Somaliland. waxaan filayaa in dhalinyaro badan oo ah dhalinyarada cusub, da'da yar leh, la odhan karo 27 sannadood ee Somaliland jirtay ayay ka caameen ama ay dhasheen inaanay wax badan ka ogeyn aasaaska taariikhda ciidanka Somaliland. in badanna waxay isweydiinaysaa oo shacabka reer Somaliland ah oo boqolkiiba 80 aynu ku qiyaasi karno, ciidankan qaranka Somaliland ma ciidan qaran baa mise waa ciidan qabiil? runtii anigu shakhsiyan markaan soo galo online-ka waqti yaroo kooban baan ku qaataa. wuxuun baana jecelahay ujeeddada aan xambaarsanahay inaan halkan mariyo, gaadhsiiyo ummadda. laakiin waxaan filayaa tani waa taariikh. intii aan ku qaadan jiray in ka yara badan baan insha allah bidmillahi kariim ku qaadan doonaa, anigoo si koran uga warrami doona sooyaalka soo jireenka taariikhda ciidanka qaranka Somaliland, xilligii la aasaasay, ujeeddooyinka loo aasaasay, iyo qaranku ciidankaasi noocadda uu imika yahay. fadlan inoo sheer gareeya si ay in badan oo ka mida dhalinyarada aan ogeyn aasaaska ciidanka qaranka, aan ogeyn sifaha loo sameeyey, aan ogeyn ujeeddooyinka laga leeyahay, aan ogeyn wuxuu yahay ay wax uga ogaadaan. waxaan filayaa jiilka cusub ama dhalinyarada cusub badankoodu Somaliland imika waxaa la odhan karaa boqolkiiba 75 waa dhalinyaro, waa dhalinyaro cusub. dhalinyaradaasi waa dadkii kacaamay 27 sannadood ee Somaliland ay jirtay. waxaa laga yaabaa inay u badan yihiin dad dhashayba intii Somaliland jirtay, waayo idanka xilligii Somaliland lagu dhawaaqay dhashay waa 27 jir, 28kiiba ku socdaa. ninkii xilligaa jiray 10 wixii ka yar da'diisa 10 jir ka yaraa, isaguna waxaa laga yaabaa inaanu wax badan ka ogeyn taariikhda ah ama taariikhaha Somaliland. waxaynu u baahanay inaynu iftiimino shacabka iyo ummadda reer Somaliland. dhalinyarada jiilkoodu uu yahay ilaa 35 jir iyo inta ka yar, waa laga yaabaa in badan oo wax akhrida, oo wax qorta, oo qoraal wax ku raadisa, oo wax dhegaysa inay wax ka og tahay. laakiin waxaan rajaynayaa inaanay boqolkiiba 80 u baxsanayn nidaamka iyo systemka loo aasaasay ciidankan qaranka Somaliland. waa ku salaamayaa mujaahid garaad iyo dhammaantiin guud ahaanba waa salaamayaa. ciidanka qaranka Somaliland loogu yeedho, waxaynu u aasaasanay inuu noqdo ciidan qaranka Somaliland leeyahay oo noqdo difaaca dalka cadow dibadeed iyo mid gudaba. waxay ummadda iyo shacabka reer Somaliland isweydiinayaan oo xilligan ku dahaaran su'aalo badan oo la leeyahay, war ciidanku ma ciidan qaran baa mise waa ciidan qabaa'il leeyihiin, mise waa ciidan qabaa'il ay leeyihiin? arrintaas waxay u baahan tahay in jawaab sax laga siiyo
dadka aan waxba ka ogeyn aasaaskii iyo qaabkii iyo jihooyinkii uu soo marday ciidanka qaranka somalilan taariikhdiisu iyo sifaha loo aasaasay iyo ujeedooyinka laga lahaa waan gudagelayaa insha allah bismi illahi kariim intaa hore waxay iga ahayd aaraar waan ku yaro dheeraan doonaa oo runtii taarikhdu waxay u baahan tahay in waqti la siiyo anigu kama badsado 10 minute anigoo ujeedooyinkan xambaarsan inuu sii daaya laakiin tani waa taariikh u baahan in loo fasilo la fahansiiyo dhalinyarada in laga jawaabo su-aasha muddada dheer iminka la isweydiinayo ee shacabku 80% isweydiinayo meelay joogaan baa guda iyo dabadba waxaynu ognahay markaynu taariikhda kasoo taariikhaha kale iyo sistamada kale ee somalilan ee dowladnimo gudageli mayno waqtiyo kalenu ku qaadan doonaa laakiin tan waxaynu ku qaadanaynaa oo qura ciidanka qaranka somalilan loogu yeedho ujeedooyinkii loo sameeyey xilligii la aasaasay iyo siyaabaha iminka uu u dhisan yahay iyo qaab dhismeedkiisu noocu yahay iyo halka uu ku eg yahay iyo ujeedooyinkii laga lahaa ayaynu dul taagnaan doonaa insha allah bismillahi kariimso xilli la fikiro in la sameeyo ciidanka qaranka somalilan waxay ahayd xilligii dowladdii ugu horreysay ee somalilan waxay ahayd dowladda xilligii lagu dhawaaqay gobolka togdheer magaalada burco 1991kii madaxweynihii u horreeyey ee qaranka somalilan ee ahaa guddoomiyihii snm ee dalkan qabtay allah u naxariistee mujaahid cabdiraxmaan axmed cali cabdiraxmaan tuur madaxweyne ku-xigeenkiisu wuxuu ahaa xasan yoonis wuxuu ahaa xasan ciise jaamac mujaahid xasan ciise jaamac labadaa nin baa u horreeyey oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen xilligaas u ahaa markaynu eegno xilligaa iyagu ay la kulmeen wuxuu ahaa xilli adag xaalad adagi ay ku gadaaman tahay somalilan wuxuu ahaa xilli dadku ay jabhad yihiin hubka gacmaha lagu haysto xaafad wal iyo family wal iyo reer waliba uu hubaysan yahay waxa ay xilli beel waliba ay leedahay technico iyo ciidan iyo xero ciidan xeryaha ciidamada waxaa kala lahaa beelo technicada waxaa kala lahaa beelo beel waliba waxay lahayd ciidan waxay lahayd hub waxay lahayd technico meel gaarana way deganayd dalka badankiisu wuxuu ahaa qori soogan waan xasuustaa anigu waan dhex joogay ganacsiga dalka ugu badan ee laga shaqaystaa wuxuu ahaa kala iibsashada hubka sida rasaasta qoryaha gawaadhida technicada ah oo raggu intay qoryaha ka rogaan iibiyaan gumucyada rasaasta oo inta laga daadiyo rasaasta la iib geyn jiray oo naxaas ahaa oo maara ahaa yacni xataa ganacsiga dalku xilligaa wuxuu ahaa oo keliya hubka iyo wixii la falgala xilligaa ay la kulmeen cabdiraxmaan iyo mujaahid xasan ciise waxay ahayd xilligaas xilli aad u adag buu ahaa xilli aan dhaqaala jirin buu ahaa waxay isku dayeen labadaa mujaahid iyagoo doonaya inay dhisaan dowlad inay sameeyaan ciidan qaran oo aw qaranka somalilan yeesho labadaa mujaahid ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka suu ahaa dalka xilligaa sidaa u adkaa ee qasku ka jiray ee qoriga soogan ahaa waxay isku dayeen inay ciidan qaran u sameeyaan haddaad dowlad maqashana dowladda aasaaskeedu waa ciidan qaranku leeyay oo loo dhan yahay oo nabadda qaranka guda iyo dabadba ilaaliya ayaa loogu horraysiiyaa ciidankaa qaranka 91kii dabayaaqadiisii oo ah bilowgii 92kii waxa ay isku dayeen cabdiraxmaan axmed cali iyo mujaahid xasan ciise inay sameeyaan ciidan qaran hal qodob oo keliya la isla qaatay halka qodob ee la isla qaatay wuxuu ahaa inta aan tallaabo kale la qaadin nidaam kale iyo system kale iyo capacity-ga ciidanka la eegin intaan la qiimayn cadowga aynu leenahay noocaddu yahay in la sameeyo oo qura in horta la mideeyo qabaa'ilada hubka haysta iyo technicadooda iyo ciidamada qabaa'ilada in la mideeyo oo qabiil walba hubkiisa iyo ciidankiisa meel la isugu keeno oo ay noqdaan ciidan tuuto loo xidho oo ciidan qaran ah oo ay noqdaan ciidan technicadooda la mariyo rinji isku mid ah
noqdaanna ciidan ka amar qaata meel keliya xasuus ahaan xilligaa anigu waan joogay labadaa mujaahid ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ahaa waa cabdiraxmaan tuur iyo xasan ciise waxay doonayeen inay salka u dhigaan dawlad ciidanka qaranka waxaa laga soo bilaabay in la mideeyo galbeedka ciidamada xilligaa somalilan ka jiray waxaa ahayn ciidano qabaa'ila oo snama oo laakiin qabiilooyin u kala fadhiya run ahaantiina iska soo wada horjeeda waxaa jiray ciidamo iyaguna ahaa ciidamadii ka hadhay beelihii dawladdii siyaad barre sida ay ka jirtay gobolka samaroon ee boorame iyo gobollada bariga ee sool iyo sanaag waxaasoo dhan waxaa la doonaya in hal ciidan oo qaramaysan oo dawladdu yeelato in laga dhigo oo laga sameeyo had iyo jeer waxaa fahantaan oo aad si fiican u fahantaan marka la samaynayo ciidan qaran ama dawlad kastaa ay samaynayso ciidan qaran qiimaynta ugu horraysa waxaa la saaraa cadow maxaynu leenahay cadowga ku gadaaman dalka waa noocma cadowguna waa laba nooc waa mid internali ah oo insider iyo mid outsider xadadka ciidanka awoodda ciidanka hubka ciidanka capacityga ciidankaba waxaa lagu jaangooyaa cadowga dawladdaasi ay leedahay waa dawlad kastoo adduunka ka jirta waa qaabka ciidan marka la dhisayo buugga ugu horreeya la qaato iyo sifaha ugu horreeya shuruudihiisa ah ayaa la isweydiinayaa dalku muxuu cadow leeyahay maxaa ku xeeran ee ku gadaaman cadow ciidan intee leeg buu u baahan yahay hub intee leeg buu u baahan yahay waa waxyaabaha lagu dhiso qaab dhismeedka ciidanka cadowguna laba nooc ayay dawladuhu u fakeraan markay ciidan samaynayaan cadowgu waa mid outsider ah iyo mid insider ah oo gudaha ah iyo mid dabadda ah halkaa waan u soo noqonayaa anigoo si wacan ku fasili doona laakiin taariikhdan waxoogaa xusideeda iyo bilowgeeda doonaya inaan fahansiiyo dhallinyarada ciidanka qaranka xilligaa cabdiraxmaan tuur iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii xasan ciise waxay ka soo bilaabeen galbeedka waxaa la soo qarameeyey ciidamadii boorame iyo ciidamadii fadhiyey magaalada hargeysa oo gobol baaxad la weyn ahaa oo ciidamo kala kaani oo beelo badan ay fadhiyeen waa la soo qarameeyey tuutaa loo soo xidhay tignikadoodii waxaa laga soo dhigay tignika tuuta leh oo tuuta lagu soo ciidan laga soo dhigay oo gawaadhida waxa loogu duubay tuutihii mardhacyaal ahaa ciidankana waa la isku soo wada daray kii samaroonka kii awalka saacad muusihiya kii garxajiska arabkii yacnihii gabooyihii ciidan kasta oo galbeedkaa deganaa from boorame to hargeysa waa la soo mideeyey xilligaa ciidanka waxaa ka ahaa jananka ciidanka allah naxariistay xasan yuunus abane ninkii garanaya waxa laga yaaba dhallinyarada taarikhda aan hayn inaanay gaadhsiisnayn oo aanay garan karinba xilliyadaa iyo ciddii dalka hogaaminaysay ciidamadooda ciidamadaasi waxa ay soo gaadheen magaalada berbera waxaa jirtay xilligaa in si xoog leh oo quwad leh oo awood leh looga hortegay inaanu ciidankaa qaranku samaysmin waxaa lagaga hortegay hab siyaasadeed hab ciidan hab maaliyadeed qaab kasta oo loo isticmaali karayay inaanay ku guulaysanin labadaa nin inaanay ku guulaysanin ciidankaa qaranka inay salka u dhigaan baa dagaal lala galay berberuu ciidanka qaranku yimi xasan yuunus abane hogaaminayo waynu ogeyn oo waynu garanaynaa xilligaa wixii berbere ka dhacay waxaa ka hortegey kornaylada dalka maanta haysta oo kow uu ka yahay musabixi cabdi mujaahid ina kaahin iyo ninkii la idhaaho mujaahid dhegaweyn oo xilligaa isaguna berbere fadhiyey oo raggaasi waxa ay isu kaashadeen inaanay suurtogelin iyadoo siyaasad fogi ka dambaysay oo niman siyaasiyiinay gacanta ku hayeen oo la doonayay inaanay hirgelin qaabka loo diidayay in ciidan samaysmo may ahayn macnaheedu oo inay somalilan ciidan yeelato looguma talagelin oo inay ciidan yeelan weydo looguma talagelin ciidan waa la doonayay laakiin inay gacanta labadaa mujaahid ku hirgasho oo ciidan qaran ku dhismo ayuunbaa laga hortegayay arrintaasi waxaa lala galay dagaal berbere waxaa ka dhacay colaado sokeeya laga riday oo qaar qabaa'ila ciidankii xasan iyo sabne halkaa waxaa ka hortegay dhegaweyn oo ciidan wata oo ciidan beeleeda
waxaa soo xoojiyey ina kahayn oo ciidan beelad wata oo buurta ay la galeen halkaa waxaa ka hormaray ciidankii laysu soo ururiyey ee qaranka ahaa iyo ciidankii nimankaasi wateen dagaal xoogan baa dhex maray arrimuhuna waxay isugu furnaayeen in aan dawladdaasi taaba qaadin ciidan qaranna yeelan hirgelina ujeeddadu markaa ma ay ahayn in shaksinimo loo necab yahay oo xasan ciise la diidan yahay ama tuur la diidan yahay laakiin waxay u muuqatay in xilligaa ay jirtay haddii dhallinyaradu aanay ogeyn sheegaanta maanta jirtaa xilligaa way jirtay siyaasi ahaan way jirtay ilaa snmt way jirtay qadiyaddu waxay ahayd inaanay hirgelin labadaa nin ee mujaahidiinta ah qorshaha ay wadaan ee daacadda ah ee la doonayo somalilan inay kobciyaan intay gacanta ku hayaan dowladnimada in lasoo afjaro oo aanay suurto gelin oo aanay hirgelin arrintaa waa lagu guulaystay dagaallo sokeeyaa burca ka dhacay qaar baa ka dhacay berbera waxaasoo dhammi may ahayn qabaa'il isneceb may ahayn qabaa'ilka berbere isku dilay ee habar yoonis iyo ciise muuse isnabcaa may ahayn qabaa'ilka burca isku dilay habar jecel iyo habar yoonis baa isnabcaa macnaheedu wuxuu ahaa guud ahaan in aanay hirgelin tallaabooyinka ay qaadayaan cabdiraxmaan axmed cali iyo xasan ciise jaam dhallinyarada aan fahansanayn qaabka siyaasiga ah ee waddanku u soconayay from a to z waxaan jecelay inaan wax badan fahansiiyo oo ay wax ka ogaadaan marxaladaha kala duwan ee sooyaalka siyaasiga ah ee ciidan ka kala waynu geli doonaa laakiin ka ciidani uu soo maray waxaa lagu guulaystay in ay fashilanto oo aanu ciidanka qaranka somalilan samaysmin iyadoo ujeeddada laga lahaa ay ahaydun inaan labadaa nin oo gacanta ku haya dalka aanu ciidan qaran samaysmin berbera ayay xeradii ugu weynada ciidanku soo degay ahayd dagaalkii lagala hortegay berberow ka bilaabmay waxaa dhacday in markaa ciidankaasi markii qabiilaystileen uu furfurmo reer walibana halkii uu dib u joogay ciidankiisii intuu ka haysto uu dib ugu noqdo halkaasaa isku daygii ugu horreeyey ee ciidan qaran oo somalilan la yidhahdo u sameeya raggii ugu horreeyey dawladda qabtay iyo dadkii ka hor yimiba noocaddaasay ahaayeen fashilkii ugu horreeyey ee dawladdaa lagu fashiliyeyna cabdiraxmaan tuur iyo ay hogaaminaya xasan ciise taasay ahayd oo ay ahayd inta ay gacanta ku hayaan ee iyaga laga maroojinayo maamulka iyo madaxtooyada laga qaadayo inaan ciidan qaran iyo nidaam dawladeed aanu ka hirgelin taas ayay xaqiiqadu ahayd siyaasadduna halkaas ayay taxana ku ahayd ninka la idhahdo ina kaahin nimanka abaanduulayaasha ahaa ee xilligaa ciidamada watay ee ka hor yimi waxay ahaayeen madaxweynaha maanta jooga anigu madaxweyne uma aqaano ee corneyl muuse biixi maxamed kaahin iyo dhegaweyne dhegaweyne nin mar walba ka yar siyaasadda duwan bu ahaa laakiin xilligaa wuu kula socday siyaasadda noocaasa nin waliba qabaayil buu hogaaminayay ciidankiisa ninka la idhaahdo muuse bixi sacad muuse ayuu hogaaminayey ciidamadiisa ninka la yidhahdo dhegaweynena ciise muuse hogaaminayey ninka la yidhahdo ina kahayna habar jeclo hogaaminayay macnaheeda waxaa kuu baxaysa oo aad dareemi karaysaa oo aad ogaanaysaa qof kasta oo aqoon lahi in sheegaantu xilligaa ay ahayd mid jirta ujeeddada ay u socdeenna ay ahayd inta idinku dalka gacanta aad ku dhigaysaan inaan waxba ka hirgelin nin kale oo halkaa fadhiyaana inaanay u suurto gelin in dawladnima dhisato laakiin waxaa hubaala oo lama taabtaana oo xaqiiqa ah runtii xasan yoonis abane xasan ciise kahay xasan ciise iyo mujaahid allah yarxame cabdiraxmaan tuur daacad bay ka ahaayeen in somalilan cagaal loo taago ciidan qaran la sameeyo dhisanto hore u socoto halkaa waxaa ka muuqatay in murug siyaasadeed oo taxano ah oo halkaa ka soo bilaabmay uu jiro waxba yaan ku dheeraan halkaa waa la fashiliyey xilligaa ciidankii qaranka somalilan la doonayay in loo dhiso ee dawladdii u horreysay ee labada sannadood oo qura ahayd ay iyagu ugu tala galeen inay ku dhisaan ciidan qaran waa la fashiliyey xubnaha aan dii sheegayo ee maanta sheegaanta ah ee siyaasadda dalka gacanta ku haya ayaana arrinkaa ka hor yimi si buuxda una fashiliyey xilligaa kadib dawladdii way iska tagtay xagga ciidankii qaranka fashil baa lagaga sameeyey waxaa jiray xitaa toddoba wasiir oo mar qura iska casilay oo ina kaahin ka mid ahaa oo beel qura ahaa ujeeddaduna ay ahaydun inaan madaxweynaha waxba u hagaagin iyo madaxweyne ku-xigeenkiistoona oo dawladnimadaas ay fashilanto runtii waa la fashiliyey waynu ogeyn boran baa la isla tegey
cabdiraxmaan wuu ka baxay hawada iyo xasan ciiseba madaxweyne waxaa noqday ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyay maxamed xaaji ibraahim cigaal maxamed xaaji ibraahim cigaal taariikhdu markay ahayd labadii bishii labaad 1994 waa labadii bishii labaad 1994 ayaa mar labaad la soo rogaal celiyey in la sameeyo ciidan uu leeyahay ciidanka qaranka Soomaaliland tiradii ugu horeysay la isu ururiyaa waxay ahayd 500 oo askari oo ka soo jeeda beelaha imika aan sheegayo ee hadda wadanka haya ee jeegaanta la yiraahdo 500 oo askari ay oo kaliya lagu bilaabay mar walba miiska talada gacanta qofka ku haya ee midda daabkeeda haya ayaa go'aamada gaara xilligaa waxa madaxweyne ahaa maxamed xaaji ibraahim cigaal naqshada iyo nidaamka siyaasiga ah ee ciidanka qaranka Soomaaliland ku dhisan yahay maanta ninkii jeexay wuxuu ahaa maxamed xaaji ibraahim cigaal ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo siyaasadiisa iyo qofnimadiisu waa kala labo waxaanu ka sheekaynaa siyaasadiisa in qaran buu ahaa in wanaagsan buu ahaa ilaahay u naxariisto waa inaga hooseeya laakiin wadooyinkii uu jeexay ee siyaasiga ahaa waa kuwa ilaa maanta ay ku shaqeeyaan xulufada siyaasiyiinta ee jeegaanta la yiraahdo ciidanka qaranka Soomaaliland maanta jirana ee laga cabanayo ee dadka inta badan isweydiinayso war ma ciidan qaran baa mise waa ciidan qabiil ninka u sameeyay shaxda ay u dajisan yihiin waxa maxamed xaaji ibraahim cigaal oo ay la wadaagayeen nimanka korneylada ah ee maanta dalka hogaamiya shaxda haddaba waxa laga eegaa aynu in yar dul istaagno si korrana aynu isu fahanno waxaana jecelahay dhalinyaradu inay ka faa'iidaysato ciidan qaran marka la samaynayo dawladday doonta ahaato ee la yidhahdo maanta waxaanu doonaynaa inaanu samayno ciidan qaran waxaa laga eegaa laba weji oo qura awoodda ciidanka qaranka waxaa lagu jaangooyaa cadowga qarankani leeyahay ayaa lagu jaangooyaa waxaa lagu jaangooyaa war maxaa hareeraha inaga xiga ee aynu cadow leenahay iyadoo la eegayo awood intee leeg baynu u samaynaynaa markaa ciidankaas ciidan tiro intee leeg ayaynu doonaynaa inaynu samayno waayo waxaa lagu jaangooynayaa cadowga kugu xeerani nuucadda uu yahay iyo inta uu leegyahay cadowguna wuxuu noqdaa laba nooc oo keliya kow cadow debadda ah oo outsider ah iyo cadow internali ah insider ah oo gudaha ah qolyihii samaynayay ee maxamed xaaji ibraahim cigaal oo ahaa shir guddoonka ee barnaamijka ciidanka dhisayay ee doonayay inay sameeyaan ciidan qaran markay dul istaageen miiska ee ay ka tashanayeen ciidanka qarankee aynu samaynaynaa waa noocadee ama noocee buu noqonayaa waxay qiimayn saareen cadowga uu leedahay Soomaaliland waxay isla garteen inaan Soomaaliya cadow ku ihi jirin oo dad Soomaaliyeed oo koonfur iyo waqooyi midna ka xiga oo maanta soo weeraraya oo cadow ku ah oo yacnihii qaab siyaasadeed haa laakiin qaab military ku soo weerari karaa inaanay jirin oo shaki lagama qabin in ummadda Soomaaliyeed ee koonfur inaga xigta ee dowladda Soomaaliyeed ay weerar ugu soo qaado cabsi lagama qabin waxa kaloo la eegay Djibouti oo xagga inaga xigta waa dad Soomaaliyeed waa dawlad yar iyadana wax shaki lagama qabin inay dhibaato ku tahay oo cadow ciidan military ahaanada ay nagu soo weerari karto waxa la eegay Ethiopia qudheeda waxa la istusay inaynu isku siyaasadnahay iyada ka soo unkanay isla markaa ka timi oo aanay wax ciidan military ama siyaasad cadowtinimo ah oo ciidan aan naga iman karin waxa markaa lagu qiimeeyay ciidankoo lagu dhisay inuu jiro oo kaliya cadow internali ah ama cadow insider inuu jiro waa qaabka loo dhisay ama loo design gareeyay ciidanka qaranka Soomaaliland maanta ka jira markii dadku waxay isweydiinayaan war ma bilowgii baa laga soo bilaabay oo waxani waxay ahaayeen qorshe dajisan oo from beginningkii ama bilowgii la soo shaxeeyay mise wax dhexda kaga soo dhacday inuu ciidanka qaranku ciidan qabiil noqdo mise markii hore loo design gareeyay mise imikuu noqday waa isweydiin waxaan markaa doonayaan ummadda u xaqiijiyo ama dadka tuso designer-kan la sameeyey wuxuu ahaa qaab ama nidaam markii la bilaabayay laga fakeray oo la design gareeyay oo loo dajiyay buu ahaa ee maaha mid iminka dhexda kaga soo dhacay ama mid dar ilaahay reer iskaga batay iminka maaha dadka qaar baa isweydiinaya
dee reeraha kale ciidamada ismay qorin odhan kara oo ku doodayaba qaar baa ku odhanaya dee aqoon baa lagu kala batay oo aqoontii militarinimo ayaa lagu kala batay qaar baa ku odhanaya reeraha kale maxay ima waayan ciidanka isu qori waayan maaha wax ay yacnihii la odhan karo sifa iska caadiya baa lagu kala batay waxa weeye waa wax qorshe iyo nidaam iyo system la dejiyey xilligaa aan kuu sheegayo 1994kii bishii labaad ee abril labadeedii loo fadhiistay miiskay ahayd nin ragii waa ogay nacasna loo sheegi maayo laakiin anigu waxaan doonayaa inaan baro taariikhda dhallinyarada kacaanka ah ee cusub ee la majiira habaabiyey ee aan fahansanayn halkuu ka soo bilaabatay siyaasadda somalilan marxaladahay soo martay mid ciidan iyo mid siyaasiba mar kalaynu wada qaadan doonaa ta siyaasiga ah laakiin maanta waxaan dul taaganay ta ciidanka qorshaha markii la dejiyey waxaa lagu baysgareeyey inaanay lahayn somalilan cadow shisheeye oo lagu jaangooyo ama lagu baysgareeyo quwadda ciidanka somalilan laakiin waxaa la ogaaday oo ay iyagu istuseen si qaldanna way ahayd si qaldan bay isu tuseen laakiin waxay istuseen in ciidanka qaranka somalilan keliya ay leedahay cadow internali ah oo gudaha ah cadowgaasi muxuu ahaa oo la istusayey beelo somalilan ka mid ah beesha garxajis baa kow ka ah oo beel ballaadhan oo loo arkayay inay 5 gobol degto somalilan beesha samaroon baa ka mid ah oo loo arkayay inay gacansaar dawladdii siyaad barla lahayd oo ay cadow ku tahay somalilan beesha harti baa ka mid ah warsangeli iyo dhulbahante iyo fiqishini oo loo arkayay inay cadow ku yihiin somalilan oo weli ay la safan yihiin systemkii soomaaliyeed beelaha markaa cadowga gudaha ee la arkayay wuxuu ahaa beelaha harti beelaha garxajis iyo beelaha samaro oo labada beelood ee baallahana loo arkayay inay ka mid yihiin dawladdii soomaaliya burburtay oo aanay raalli ka ahayn gooni isutaagga somalilan quwadda cadowtinimada taasaa lagu jaangooyey beesha garxajis oo beelaha isaaq ee xilligaa jiray ee allianceka ahaa ee labadan beelood hogaaminayeen ay aaminsanaayeen inay tahay beel ballaadhan oo aan loogu ay yidhahdeen hadday maamulka qabtaan shaki iyo dareen badan ay ka qabeen waa sababa markaa markii idaxa jibraahin cigaal uu jaangoynayey khadka siyaasadda ee nidaamka loo dhisay uu ahaa in ciidanka somalilan lagu jaangooyey oo keliya bal hadda hadalkaa hubsada adduunka marka ciidan la samaynayo way ku celinayaan dawlad kasta oo ciidan samaysanaysa laba qodob oo keliyuun bay ka fikirtaa markay ciidanka jaangoynayso ama shaxdiisa dejinayso cadow dabadda ah iyo cadow gudaha ah markii qodobkaasi hor yimi ee ciidanka dhismihiisii bilaamayay labadaa qodob waxaa meel layska dhigay cadowgii dabadda oo la yidhi cadow dabadeed ma lihin oo aynu hadda ka warwarro fuutureka mooye waxaa la arkay ay yidhahdeen waxaynu leenahay cadow gudaha ah oo siyaasadda jeegaanaysan ee markaa iyagu ay wateen ay aaminsanaayeen dalkan inay gacanta ku sii hayaan dadkana ku maamuli karaan inay ciidankaa ku jaangooyaan ciidanka markaa su-aashaas jawaabteedu waxa weeye ciidanku waa ciidan beeleed huwan shaadhkii ciidanka qaranka somalilan oo sita sumadii ciidanka qaranka somalilan la huwiyey sita magacii ciidanka qaranka somalilan matalaya ciidanka qaranka somalilan oo adiga iyo aniga iyo mid kastaba matalaya laakiin gundhigiisa iyo qaabdhismeedkiisa iyo nidaamkiisuba uu yahay in loo shaxeeyey qaab qabiil oo shaadhkana loo dahaaday 27 sannadood wuu inaga qarsoonaa oo maynaan dareemayn in badani may ogeyn dadka inta og ee shakhsiyaadka ah ee imika anigoo kale oo xoogagaalka ahaa iyo in badanoo siyaasiyiin iyo aqoon-yahan iyo dad waaweyn oo xogay waxay u tudhaad u ahayd ay u tudhayeen somalilan jiritaankeeda waxay u tudhayeen bal in mar uun ay dadku isu dheeli tirmaan oo si iyadaan la fashilin oon kor loo qaadin laysu soo gaadhsiiyo laakiin way suurtogeli weyda ciidanka qaranka somalilan ciidanka loogu yeedhaa waa ciidan qabiil su-aasha ansaxayaana waxa weeye inta isweydiinaysa war ma si qaldan baa loogu kala batay war ma si aan la hubin baa loogu kala batay war ma dadkaa ciidanka u kala regaysnaa iyo waxani ma wax ka soo bilaabmay from beginning baa oo loo fekeray waxaan leeyahay jawaabtu waxa weeye oo xaqiiqo ah waa wax loo fekeray oo nidaamka lagu aasaasay oo shaxdiisii watay oo maanta ilaa halkaas soo gaadhay
ciidanka qaranka somalilanna qaabka loo dhisan gareeyey wuxuu ahaa inay ugu bataan beelaha jeegaantu sida ay imikaba ugu badan yihiin waynu taabtaaban doonaa oo waan dii hayaa liiskeedii hoggaanka ciidanka qaranka somalilan beel waliba intay ku leedahay inta somalilan degta waynu wada ognay kolley baraha bulshada waa ka akhristeen laakiin halkana waxbaynu kaga taaban ciidanka qaranka somalilan waxaa loo dhisan gareeyey in beelahaasi ay noqdaan quwadda ama lafdhabarta ama udub dhexaadka ciidanka tira ahaan oo ah quantity taya ahaanna inay noqdaan iyagu mas-uuliyiinta sare ee hoggaaminaysa ee xukumaysa quantity ahaanna in tira ahaanna loogu badiyo marka waxaa lagu soo dhex daray beel kasta in kooban baa lagaga soo dhex daray si ay u noqdaan tarax ama wax lagu dhex sharaxo hadda jeer waxaynu ognahay xusbiyada ayaa waxay isu bedeleen inta dambe xusbiye qabiil markaasaa xusbiga beelaha ku heshiiska amooye beelaha kale waxaa laga soo qaataa waxoogaa laga dhigto sumad ama taswiir oo xagga hore la geeyo ciidanka qaranku sifahaasoo kale u dhisnaa xaqiiqatan weeye waa sida dhabta ah samaroon in baa laga keenay harti in baa laga keenay garxajis in baa laga keenay fiqshini in baa laga keenay gabooye in baa laga keenay arab in baa laga keenay beelo badan baa ina laga keenay waxaasoo dhani waa marka la eego ee loo qaybiyo divide two ama 3 meelood loo qaybiyo laba qaybood waxay noqonayaan weli jeegaantii qaybina waxay noqonaysaa dadka intii kale marka waxay noqonaysaa quantity ahaanna in lagaaga badan yahay quality ahaanna in lagaaga badan yahay oo quality waa maamulkiina in la haysto marka taasi waa mid ay ugu tala galeen inay gacantooda ku jirto ciidanka qaranka somalilan dawlad haddaad maqashana dawlad maaha wasiir maaha madaxweyne madaxtooyada ummaddaa wada leh maalin baa nin baa geli kara maanta nin kalaa geli kara maanta beri adaa geli kara maanta anaa geli kara macna samayn maayo ninka madaxtooyada fadhiya haddii laga haysta ciidanka qaranka somalilan oo ciidanka laga haysto waxba ma sheegaysid awoodda dalku waa ciidanka qaranka haddii ciidanku dheeliyo oo dhinac ka raran yahay madaxweynuhu waxba ma sheego wasiirkuna waxba ma sheego waa shaqaale muhiimaddu waxa weeye qorshe dhammaystiran oo 1994kii bishii labaad labadeedii la dejiyey buu ahaa guddoomiye waxa ka ahaa allaha u naxariistay maxamed xaatulaahin cigaal majiraha siyaasi ee ciidan ee maanta la raacayana waa kii isagu uu jeexay qarankana ciidankiisu wuxuu u kala badan yahay laba qaybood waxa weeye waa tiimka siyaasiga ah ee qabiilooyinkoodii wata ee jeegaanta loogu yeedho dadka inta kalena waa ka minority inanka ciidanka ku jira ee reeraha kale uu ku dhex dulmaya waxaan haddaba in yar dul istaagayaa anigoo kolley ku soo dhow gebagabadii ujeeddadiiduna ay ahaydun inaan shacabka iyo dhallinyarada soo kacaysa u fasilo taariikhaha ka qarsoon iyo halka ay ka soo bilaabatay taariikhda waxaan idinku soo mariyey in 1991kii uu isku dayey labadii mujaahida dalka ugu horreeyay madaxweyne dalka qabtay waa cabdiraxmaan iyo xasan ciise oo madaxweyne madaxweyne soo ahaa oo raggii qabtay somalilan ahaa ama xoreeyey cabdiraxmaan wuxuu ahaa ninkii markii lagu wareejiyey guddoomiyenimada ee siilaanya ku wareejiyey guddoomiyennimadii esrem yidhi aniga 6 bilood oo qura ii qabta dalkan ku qabanaya 6 biloodna uu ku qabtay xasan ciise jaamac ku-xigeenkiisii buu ahaa madaxweyne ku-xigeen bay ahaayeen labadaa nin 2 sannadood baa sharcigu siinayay sharciga esrem baa siinayay in dalka marka la qabto ay noqdaan madaxweyne ku-xigeen oo dalka iyagu hogaamiyaan saasuu ku hogaamiyey dawladda la dagaalankeedii dawladdaasi waxay ahayd dawladdii ugu horreysay ee bilowda inay isku daydo inay samaysa ciidan qaran waxaa lagala hortegay qaab jeegaanaysan oo uu hogaaminayo ina kaahin musabiixi iyo dhega weyne ragga ugu cuslaa markaa dagaal baa lala galay dagaal beeleed baa la abuuray iminka waxaa la leeyahay war dagaal beeleed ha samaynina iyagu xilligaa dagaal beeleedaysay habar yoonis iyo ciise muuse isku dhufteen habar jecla iyo habar yoonis bay isku dhufteen ujeeddadu ma ahayn reeruhu isjeceb inay isdilayaan waxaa keliyay ahayduun in dawladdaa la fashiliyo oo aanu ciidan qaran samaysmin oo nimankaasi aanay ku guulaysan intaasun bay u socdeen hadda fahan qodobka fahan ninka u arka qabiilaha isdiloo isnabcaayo war nin habar jecel iyo nin habar yoonis isma nabcayn nin ciise muuse iyo nin habar yoonis isma nabcayn ujeeddadu waxay ahayduun markii garxajis iyo habar jeclo markii garxajis iyo habar awal la isku wada hor keenayay
macnuhu wuxuu ahaa uun in laga hortago la burburiyo nidaamka siyaasiga ah ee uu hogaaminayo cabdiraxmaan axmed cali allah u naxariistay maantana waxaa lagu leeyay waar dagaal qabiil haynagu furina nin walba wuxuu dhitaystay baa u yaalla waxaan runtii ku soo gebagabaynayaa bal aynu eegno oo in yaroo fudud ka eegno shaxda ciidanka qaranka somalilan mas-uuliyiinta u sarreeya ama madaxa ciidamada qaranka somalilan intee baa la kala haystaa waan idiin marinayaa 47 xubnood oo u horeeyo hoggaanka guud ee qaranka somalilan waa 47 waxa ah habar awal oo keliya ciise muuse kolley wax yar baa kaga jira laakiin majority waa sacad muuse mar walba ciise muuse waa suubis oo habar awalnimada ayuu iskaga dhex jiraan laakiin wax badan kuma qabaan wax xaqiiqo weeye laakiin 27 xubnood oo hoggaanka ciidanka ah meelaha ugu muhiimsan waa habar awal 26 xubnoodna waa habar jeclo 26na waa habar jeclo 47 iyo 26 bal adigu isu geysa sheekhow isu geysa adigu waa halkaa ku soo qor waa 73 73 weeyaan 73 kaa xubnood waa systemka la yidhaha jeegaanta gacanta ku haya waa hoggaanka militariga ee ciidanka saraakiisha 10 xubnood garxajis baa leh oo haya 13 xubnood dhulbahanta haya 3 xubnood oo warsangeli baa haya waa 16 xubnood harti israaci waa 16 xubnood 16 weeye garxajista 10 weeye samaroon 13 weeye arabku 8 weeye arabku waa 8 ayuubku 1 weeye adigu dee intaasoo dhan bal isu geygeyso markaan isu tiriyey waxaan eegay tirada guud ee ay haystaan marka laga reebo habar jeclo iyo habar awal inta kale ee somalilan degtaa waxay isku haystaan 45 xubnood bal hadda hadalkaa u fiirsada inta somalilan degta ee aan jeegaanta haynin hoggaanka ciidanka qaranka somalilan waxay ka hayaan 45 xubnood oo keliya weeye halka habar awal oo quri ka haysato 47 xubnood habar awal baa waxay dheer tahay 7 xubnood 2 xubnood bay dheer tahay somalilan inteedii kale marka habar jecel laga reebo 47 waa habar awal 45na waa somalilan inteeda kale habar jecel iyada gooniyi dhig marka la isku daro habar jeclo iyo habar awal waa 73 waa 73 ummadda inta kalena waa 45 idinkaa eegi cadaaladda halkaa taalla markaa war idinku isku dhufsada somalilan inta kale oo dhamme hoggaanka ciidanka xilal waxay ka hayaan waa mas-uuliyiinta hoggaanka ciidanka qaranka mas-uuliyiinta weeyaan oo dhan 45 bay somalilan inteeda kala haysaa jeegaantuna waxay haysaa 73 habar jeclo 26 bay haysaa awalna 47 buu hayaa bal idinku cadaaladdaa haddaba ka garnaqa ma ciidan qaran baa ma ciidan qabiil baa waxaan kaloo kuugu darayaa dhegaystow waxaan eegay oo akhriyey xilalku waxay kala yihiin in alla inta dalka ugu muhiimsan ciidanka qaranka somalilan habar awal baa haysa habar jecel xitaa dadkay la mid tahay markii 26keeda hayso waa hoggaankii ciidanka meelaha ugu muhiimsan baan idin tilmaamaya hoggaanka ciidanka qaranka somalilan hoggaanka saadku waa maxay waa wax alla wixii ciidanku saad leeyahay waa raashiney waa marye-ey waa kaba-ey waa rasaasey hoggaanka saadka hoggaanka dhaqaalaha ee bajetka ciidanka loo dhiibaa waa iyaga yacnihii bajetkii bay hayaan waxay hayaan hoggaankii guud bay hayaan saadkii bay hayaan waxaa la yidhaahdaa 25 nin ayaa ah waxaa loogu yeedhaa hoggaanka ciidanka somalilan waa 25 nin oo ah guddida miiska saraakiisha isugu timaada waa 25 nin 25 kaa nin waxay leeyihiin guddoomiye ama hoggaan bay leeyihin waa nin sacad muuse hoggaamiyaha miiska saraakiisha waa nin sacad muuse
hogaamiyaha guud waa nin Sacad Muuse hogaamiyaha budgetka loo dhiba dhaqaalo waa nin Sacad Muuse hogaamiyaha saadku waa nin Sacad Muuse yacnihii waxaad odhanaysaa war dadku xitaa miyaanay khajilayn 25 nin ee loogu yeedho hoggaanka ciidanka qaranka Soomaaliland 21 waa sheegaan 19 waa awal labana waa habar jaro aduu ka sitee bas weydii wax runtii waa runtii aan muhiimadda koowaad waa iska gebagebo ujeeddooyinka koowaad ee aan u soo galay ee aan jecelahay inaan taariikho badan oo ku saabsan Somaliland aan ka warramo mid siyaasiya siyaasadda guud ta ciidanka waxaan oo dhammi waxay ahayn sifayaal taxana ah oo raka shaqeeyay oo waxaan ku uri maaha wax sifa yar saga bilaamay waa wax laga soo shaqeeyay waa wax rag ay soo nidaamiyeen waa wax loo soo fakray markaa anigu waxaan aaminsanahay waynu kala faa'iidaysanaa insha Allah bismillahi kariim taariikhda maanta aan halkan ka mariyay waxa ay ku koobnaydo oo qura ta ciidanka qaranka Somaliland inuu ahaado ciidan huwan shaarka qaranka Somaliland inuu ahaado ciidan huwan summadda qaranka Somaliland laakiin uu ahaado ciidan qabiil waa laga shaqeeyay barnaamij la dejiyay buu ahaa mid loogu talagalay buu ahaa mid taxana buu ahaa muu ahayn mid lagu qaldamay muu ahayn mid sifa yar loo kala batay shax bay ahayd 1994 kii la dejiyay intaasuun baa doonaya inaan fahansiiyo dhammaan dhalinyarada kacaanka cusuba ee ilaa 5 jirka ah ee ku kacaantay Somaliland ee aan taariikhaha Somaliland ay soo martay iyo sooyaalkeeda ka warhayn ee imaka laga yaabay lama jira habaabiyo ee la yiraahdo reer baa wax doonaya reer baa wax boobaya reer baa wax iska diidan reer baa Somaliland duminaya war maaha dhalinyaro yaalnay digelin reer baa wax duminaya ninka wax duminaya waa ninka madaxtooyada fadhiya ninka wax duminaya waa ninka ciidankii qaranka Somaliland ciidan qabiil ka dhigay ninka wax duminaya waa ninka aan dhaguhu u daloolin ee aan tabashada dadka ogolayn ninka wax duminaya waa ninka laba beelood oo qura intuu isu keenay yiri inaga dadka ka talinayna kaasa wax duminaya wuxuu yiri xasan sabatar baa wuxuu yiri waan idin dhaliilay ya dhan kala u socotaan xaqiiqo waxba waanay maqlayn laakiin waxaan u malaynayaa had iyo jeer markay dawladdu dumayso qaabkan oo kale u shaqeysaa imika waxaan arkayaan ku soo gabagabeynayaa iyadoo la yiri inanka gaari la goostay ee caara ula taga aabihii iyo hooyadii baa la soo qabanayaa loo xidhaya haddii la waayo in adeerkii abtigii baa loo xidhaya waa dhaqankii dawladdii inay ku burburtay ee la odhan jiray halkan laftii baa martay laaya dadka waa halkii ay ku burburtay dawladdii siyaad barre markii u dambeysay ee la odhan jiray SSDF baa halkan martay ee ma jirteen lagu xasuuqi jiray dadka masaakiinta ee la odhan jiray halkan SNM baa martay ee dadka lagu xasuuqi jiray tii bay bilaabeen halka ay marayaan waa halkii u dambeysay inan kaa goostay ee gaariga la goostay ee isagu go'aanka gaaray ee ninka weyna ayay ku leeyihiin hooyadii baa loo soo xidhaya waa bartii u dambeysay bay marayaan ninka isweydiinaya ee le caara uu qaldan yahayow caari cadaalad darrada ka jirta ciidanka qaranka Somaliland buu ka tegey isaga iyo Gamaal Baaxad iyo korneelada kale iyo dhammaan mujaahidiinta halka u talowday xaqii bay ku taagan yihiin ilaahayna waa u hiilinaya waana guuleysanayaan waa hubaaltaas ciidanka qaranka Somalilandna shakiga ku dhex jiray maanta waad ogtay nin waliba reerku ahaa buu noqonayaa haddii caynka ku soo jirto hubaal waxa ah inuu caara saxanyay wadadii saxda ahayd ku taagan yahay cidina aanay ka leexin karin ninku u samaystay ciidan qaran kaaga dhigay ciidan qabiil caara mid cad buu samaystay isagu oo jabhada oo dhammaan ummadda dulman ee reer Somaliland ay isugu tagi doonto kuwada dagaal gali doonto dalkana ku xoreyn doonto dulmigana ku suulin doonto laakiin ninka shaarkii qaranka ku xidhay ciidan qaran kuugu tilmaamay ciidan qabiil isagoo ah ee madaxtooyada ku fadhiya waa ka dhibaatada keenay ka dalka duminaya waa ka Somaliland duminaya waa ka tabashada diidaya
ka Soomaaliland duminaya waa ka ciidankii qaranka reer ka dhigay ka Soomaaliland duminaya waa ka madaxtooyada fadhiya ee wax walba kula soo xidha qofka hadla xidha war intaas oo isku reera oo mujaahidiina oo ciidankii askartii ciidanka qaranka oo salaadiina ayaa ninban nin xidhay ninban nin buu xidhay cadaalad darro intaa lagu warigan mayna arag oo jeelas la iskaga hayaa maxkamad la geyn oo qaar baa ku oranaya war Muuse Biixi in yar buu joogo 7 bilood ee waqti siiya Muuse Biixi dadka cadaalad darrada u xidhan ee xabsiyada ku jira ee salaadiinta leh ee mujaahidiinta askarta ciidanka leh ee beesha qura ah ee arab iyo arab iyo garxaj soo qura ah ee xidhxidhan culimada iyo shiikhaashta leh miyaanu ogeyn yar maxkamad bal saarin se waxay leedahay ma ogo oo isna waa walkii siilaanyay isna madaxa laga galay ugu bukaa waxa hubaala xaqiiqo weeye saas waa xaqiiqa ciidan qaran Soomaaliland ma jiro ciidan qabiil baa jira shaar qabiil buu hawayay 73 nin baa sheegaa soo qudleeday ummadda kale Soomaaliland 45 bay leeday sacad habar awal oo 74 bay leeday iyaga Soomaaliland inta kale ka badan waa ciidan qabiil oo uu majirihiisa soo qabtay ninka la dhado xilliga asaaskeedii uu lahaa Allah yarxamay maxaa jiraan cigaal waa siyaasad taxanaa siyaasad sheegantu waa mid la soo dajiyay ma aha mid kama ku timi wuxuu baan leeyahay dhalinyaro qaybaha dambe tani waa tii ciidanka wiigiiba maalin baynu ka sheekayn doonaa siyaasadaha dhabta ah ee jira taariikhda Soomaaliland Soomaaliland iyo qaabka u jiraan aad baan dii salaamayaa inta jecel dimuqraadiyadda inta jecel dulmiga diidan ee dulmi la'aanta jecel inta cadaaladda jecel ayaan anagu asxaabnay intaasaan salaamayaa waxaan dileeyahay madax sare Allah ya salimak khayr baan dirjeeniyaa assalaamu calaykum